إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع العالي. عثمان بن عفان الله الرالي كان نقضي الضوميه سي الضون كميد هو يري مالين وعود العقد انقاذ أبو ذر الغفاري وقي هدو العقد أبو ذر هدو العقد كان قاتنا حربات هاي وكير حر واكو حري أبو ذر مركا مقالة مدينة دبتة ودقنا ريب دم الليلة وعثمان بن عفان بقول هلكا أبو رضيو وأيوان الزاهد أبوها قرني النبي قد موداينو جوجي سوق dadka taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali cariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu Abu Dar al-Ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaama hinde nani baa lacag diidaya واسك جعلها ويمدي وسلامي وعد أميرك المؤمنين تاع عثمان بن سلام كاجا سدا وان كقاضي بل ورن نسقى كورن دار الخلافة كورن مسجد النبي كورن مسلمين تحلقوا كورن مركوا كورمي أيوري العقدنا ويسو ديبا وحيوري أبو در أوجي العقداس مركز المحان كدقا عدي ده هو كالمست أدويديس markaasuu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamanka waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanay may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa Ilaahay baahideeda Ilaahay baa i daboolaya حاجاتك إلهي بأي قومنايا وحنو باهنا إلهي بأي عدك الوحي ما هيسو لعقو ما باهني باكنا على عسنة ديكا لكن إلهي أمر قسانو باهنا دعاء هيستا صلاة بان هيستا استغفار بان هيستا قرآن بان هيستا أعمال بان هيستا قلبي قنوحو كو حصله والدين وين أدوية ما أركاسو نكي يابو سكتادو مي أعلي مركو أركينو نكي العقونا أجدون وقادنين أي رنتا وشيغو وحو كو يري أميركا وحو يغو يري هدو عثمان هدو أبو در العقدا كا قاطو حر با تahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada ha ka baxee xoraayo lacagta niga qaado buu kaydi markaas uu ka qaadan maayo waxa doonta akhri markaas uu iga qaado oo ina xariiso maxaa kugu naxariista hadaa lacagta iga qaadato waan xoroobay buu kaydi wuxuu ku yiri Abu Dar dhageyso hadal buu ku yiri eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna adoon baan ku noqonayaa buu marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu kaydi anu adoon xor aan ahay buu xor bas oo yaa ninkii lacagta isagoo wada Cusmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dar al-Ghifari lacagta daliil ma ino ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyada maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baa ka baran kari laanahay diinteeni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tageen bay adduunyada ku leedahay lamana nacaya adduunyada ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii آخرة هي نكالو وينان اسمه بن عفان الله رالي كان نقضي نبى النبي قوي مدوي قبل بالليسيي وحكوا قلقلنا ما هيستو
cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan bin cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cusmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kalean meesha ka socda buu yidhi markaas maxaad aragtayoo maxaad u socoto dee nebigaa ii kaa soo diray buu yidhi sal alla alay slam oo yidhi cusmaan u tego waxaad ku tidhaahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday bood igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunya iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiya lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay